بسم الله الرحمن الرحيم. قلب وناكسن برنامجka galabta waxa ay ugu martiya General Saciid Maxamed Xirsi Saciid Deere. waxaan ka wada hadlaynaa kala sheegaysanaynaa taariikh dheer oo noloshiisii kamida ay ka mid tahay asaaskii ururkii SSDF iyo halgankiisii iyo marxaladii uu soo maray markii dambe burburka asaaska goboladii waqooyi bari wixii la oran jiray asaaskii Puntland iyo amuuro badan oo arrimaha la xiriira General Saciid Deere ku soo dhaw barnaamijka. su-aashkooda aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye sidee ugu biirtay ururkii jamhadda badbaadinta Soomaaliyeed ee SSDF markii hore SSDF la oran jiray bal halkaas sawirkaas inagee su-aasha tan aad ii weydiisay waa waqti muddo dheer laga joogo laakiin waan ku talageliyay inay mar un imanayso horta SSDF bilowgeedu magaca SSDF intaysan la bixin waxay ka bilaabatay kulankii Nairobi Abdullahi Yusuf uu ka fikiray ciidamadii Soomaaliyeed ee taliyihii qaybta uu ahaa galbeed koonfur galbeed oo Nairobi galay markaas ay halkaa joogeen ay ka abuurayaan dad badan oo ganacsato leh oo odayaal siyaasiyiin leh oo si maaragtay iyagu uga fooday markaas xaaladihii jiray ay ku urursanaayeen markii Cabdullaahi xaggaas tagay marka uu tagay saraakiil la socotay ay dalka Kenya galeen waxa markaas wax la su'aaleeyay iyadoo ay siyaasiyiin hore oo SSF la baxdayna markii hore ay jireen oo siyaasiyiin soodaf oo aan garab ciidan lahayn ay joogeen ay ka mid ahaayeen Cusmaan al-Qodof Ahmed Ali Qonof iyo Xasan Ali Xaaji Cali Mire ay ka mid ahaayeen oo dalka Itoobiya xiriir la sameeyay hore haddii Kenya marka la isugu tagay isku dayga aniga shaqadayda waxay ka bilaabatay markaasaan anoo fasax caafimaad oo dhaawacii dagaalkii ah ayaan si dhuumasho ku tagay inaan xog u helo Kenya markaas waxaan soo ogaaday xaaladda jirta dad yar baan la kulmay Kenya waa markii waa bishii June 28 haddaan dadkii yaraa markaas la kulmay xaaladii aan ogaaday waxaan markaas anigu aan isku qorsheeyay ama jeclaystay meesha la aadayo markaasna Ethiopia ay tahay way dawladda Kenya ayaa la weydiiyay markii hore la weydiistay base inay nasiiso way Ethiopia shaki ayaa jiray markaas isku aaminaada saraakiisha iyo ciidanka iyo wixii kale oo qalab u jiray oo la tagaaba waxay ku dambeeyaan aaya dambe ayaa waxa jirtay su'aal question mark in marka Ethiopia laga keeno xaqiiq dhab lama ka halgeeni karnaa bise kama halgeeli karno leesoo weydiiyo marka la qiimeeyo ma laga halgeemi karaa mise lagama halgeemi karo haddii marka meeshii Kenya waxay tiri anagu ciidamada Soomaaliya oo Ethiopia oo 2000 sano in ka badan dawladda ahayd u babacdhigto jabiyay oo adduunku u soo gurbaday ilaa Ethiopia waxay ku badbaaday gurmad adduunka dawladda shuuciga ay siiyeen bay ku badbaadeen Ethiopia ciidanka dalka Soomaaliya ciidamadeedu dhulka badan oo muhiimka way qabsadeen hadda sabab baan la gaaray haddii herer la gaaray haddii dirdaba la gaaray haddii xagga kaliya mooyaale la gaaray haddii jawaab wax walba markaas ciidanka intaas maray markii dambana in adduunka dhan ka soo qayb galo ay gaadhay shuucigii oo dhan anagu uma babac dhigi karno haddaan Kenya nahay ma hayn karno awooddaas marka kuma soo fasaxi karno dalka yaga oo marka furinta ma noqon karno anaga intaas awood uma dhay uma babac dhigi karno marka aan dhuuftii dib baa loo laqay ahayd in Kenya laga furo base dagaal laga furo
marka waxay noqotay bishii August horaanteedii iyo 28 August horaanteedii iyo haddana aakhirkeedii laba goor in wafdi la isaga daba noqday Ethiopia oo qorshaha laga dhaadhicinayo qorshahaas inay ogashay base aan laga duulo aan ka duulno inay nasiiyaan ururkaas aan furi doono oo marka horena wakiiladiis joogeen oo raggii hore oo meesha joogay ee hay'adda anaga matala ee hay'adda naga soo dadka iyaga kamida Ethiopia marka way ogolaatay inay base-kii ay bixiso laga duulayay iyo wixii logistic oo loo baahdo ciidanka in logistic noo soo madho iyaduna wixii karaankeeda ay maaragtay bixiso halkaas marka meeshii koowaad lagu gaaray in urur dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo military garab military in la sameeyo waxay ahayd Kenya ayay ahayd ka bacdii markii Kenya laga waayay base-kii ka cudurdaarateena waxa la goostay in loo wareego Ethiopia loo wareego oo Ethiopia meesha dhaqdhaqaaq garabka ciidan ay ka dhaqdhaqaaqayaan ay noqday siyaasadaba ciidan iyo siyaasiyadba markaas in la wareego marka intaas aan ka soo ogaaday anigu waan soo noqday Cabdullaahi baa qorashada xagga ayo iyo odayaashii masalan maxamed Ismaaciil Kaarshe iyo Cabdullaahi baan aragnay gaar ahaan sooreysannay iyo maxamed Xaaj Jaamaci rag odayaal waxa joogay meesha aad u qaali ayaa joogay meesha marka inaan dib u soo noqdo oo hubaasha dhabta warkaas aan sugo gudaha aan ka shaqeeyo si gudaha marka aan uga shaqeeyo markii ba soo noqday marka dib baan soo noqday marka waxaan bilaabay haddaan dib u soo noqday iyagu marka waxaa la bilaabay ciidanka in laga diyaariyo wixii East Africa diyaar in ciidanka koowaad wixii Nairobi iyo soonkaas ku sugan in laga qaado anigu waxaan ugu soo noqday inaan gudaha ka shaqeeyo inta ciidankaas tabarsanayo inta la hubsanayo Ethiopia iyo inta xalka arintii inqilaabka saraakiishii marka lama layn saraakiishii inqilaabka inta go-aankooda dowladdu tallaabada ay ka qaadanayso inaan marka xiriiriyo noqdo oo xiriirka ka shaqeeyo ayaan si xil saaray iyo abaabulka dadka gudaha iyo dibaddaba dhan kastaba waxaan soo saaray marka waxaan ka shaqeeyey kow inaan markaas aan maadaama dhaawacan ahaa aan ka baxo ciidamadii oo aan qof caadiya noqdo mar qosaysaday way aniga waxaan diiday anoo kashaarkaygii gashan brasiidkayga oo ka soo horjeeday inaan dal kala tago baan anigu diidanaa oo aan wadankii inta ka fikado dal kala tago anoo wadankayga u shaqeynay u dhaartay horta waa inaan dhaartii iyo wadanka xilka aan u qaaday aan iska xaliyo shaqadii waa inaan ka tagaa shaqadii markii waan ka tegey marka ciidankee ka tirsanay waxaan ka tirsanaa commandoska ayaa ka tirsanaa bayskeygu yahay Beledoogle ayaan ka tirsanaa markaas ciidankii markaan ka tegey marka waxaan bilaabay inaan wixii dugmenti wadanka iga yaalay oo dhan aan ururiyo aan gubo because waxaan ka cararayaa hadhowdii waa socdaalaya dadka wantirkaada wadanka ka tegey iyo dadka kiisaska lagu xogta waa la helayaa dal baad soo gelisay aduu ka sheekay dalkiina waa lagu raadsanaya akhirka warkaada waa la helay qofka sheekaya ama Saciid ma arkaan xagga arkay marka dugmentiga waa midka la isku raadinayo meel walba la dhigayo inaan wax raago dugmentiga ama wasaaradda ama ciidamada ha ahaato ama wasaaradda tacliinta ha ahaato ama meel kasta ha wax raadaha oo iga yaalay baan horta waranka ka kala gareeyay qof aniga ay garanayo iga soo horbaxa mooyaan qof igu gartaa inuu sajirin dugmenti ayaan ka shaqeeyay waan dhamaystiray markaas dalka waxaan ka qaatay haddana
kiri banaale waxaan ka qaatay warqad dambi la-aanta wadanku markaa 16 gobol ah 16 gobol meel dambi wax dambi oo iga yaala inay jireen iyaga waa dhoofaya baan ku irimad marka qaadanaya dhoofaya marka wadada dambi la-aanta hal isii ragan garanayo dee waa joogayo ragaas hal ay sameeyay waradii dambi la-aantana waan qaatay oo inaan meel aan dambi 16 gobol marka meel kasta la baaro la weydiiyeyna inaanan dambi meelna aan ku lahayn ayaan waxaan ku raadaan markaas ayaan dambi la-aan taas jeebkayga waxaygan ku ritay waxaan ku darsaday dugmantigaygii maaragtay aan hayso jeebka mar walba aan wato si inta la tumo aan cidina aysan igu soo dhicin markaasaan waxaa shaqada ka bilownay meel kasta markaa xiriirka ciidamada iyo shaqaalaha dowladeed cid kastaba inaan kontakti garayn karo way ciidan u tirsanahayna ma jirto wax raadoo layga hayaa kalena ma jiro shaqadiina isa kareergeeya banaankan ka maray anu nin oday Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed shabaab Soomaaliyeed dhul 20 jir ayaan markaas waxaan ku raaday way ku filan maanta sawirkayga inaan helo oo aan sawir maanta sawirkayga waa iyaalay guriga garow yaalay inaan soo dhigo maalintaas sidaan u ekaayo xoogayga iyo magaciisiga iyo tabartayda iyadoo halka inoo taagan tahay oo arintii ay tahay bal aan sugno waxa la isku dayay marka hore waxa la abaabul wadanka gudihiisa aan ka galno tala oo ciidamadii siisamkii hore wuxuu ku feel garoobay innaga oo aad uga taxadirayna oo ka dheeraanayna abaabul aan xariyaa ka galo وعنقلاب كلمة الكفرية ها حرول با هل استياري جوندي محا كرادا مركاس كهول جلي كره وبوسط فينا محا نقطف أنا ودي لي تاس waxaan ku yiraahdaa hadeer ba asaartii inta dhacday aan meel looga dabaalan kara aysan jirin hadii inqilaabka hore fashilmay way inqilaabka fashilinkiisu wuxuu ku yimi in fashilmeen inqilaabku tii ilaahay baa meesha taalay waa kowtan kala inqilaabku waxay ahayd inuu ka dhaco Hargeysa gobolada waqooyi bal saraakiishii joogtay waxay ahayd in marka hore waqooyiga la qabto oo saraakiishu oo dhan oo taliyaasiyadii iyo taliya qaybkii wixii ka hooseeyay salxaan wixii ka hooseeyay caari iyo neera iyo aydiid iyo kulli xagee wada joogaan in la qabto waqooyi markii waqooyi la qabto oo saraakiishu idaacadii ka hadlaan in markaas dawladda tashankeedu wuxuu u jeesanayaa in gurmad la siiyo waqooyi aniga dhiib liban aad u wareysan inta xogtada waa raadiye way anigu ragga Ingiriiska promoterska ma aanan ahayn oo inqilaabka xubnihiisii rasmiga ah ma aanan ahayn laakiin warkii dib baan u raadiyay dib markaan u raadiyay raggi baa ii waramay sida wax ahaayeen yalla ii waramay markii ciidanka halkan jooga la abaabulo oo la amba bixiyo waqooyi sida hawshaas looga hortagi lahaa ay dawladdu u jeesato oo xamar faaruqay tahay markaas kulliskii Cabdullaahi Yuusuf oo markaa inay soo galaan Muqdisho ayay inta balad dawlad safaynayaan gooteen la soo hormariyo oo afgooyo la xiro kabadina magaalada cidla ay qabtaan markaas inqilaab saar loogu dhawaaqay ahayd marka taasu waa fashilan yimi bay noqotay oo 9 Abriil ku tala gashay ma jirin 9 Abriil haddana waxa ku dhacday laba arrimood baa ku dhacday dadkii ka qayb galay dhaliili maayo laakiin sida wax ka noqdeen amarka Ilaahay baan jirin 9 Abriil 12 keenay waqtigaas inuu dhaco ku tala dalka inqilaabka loo balansanaa 12 baa haddii 12 ahayd marka afar cashayeed hore loo soo qadimaadaas cida socotay ma jirin
midda labaad kumaan boosna ma jirin meel wax laga hagaya iyo communication midna ma jirin ciidankii magaalada xamar ka diyaar garoobay markay 9kii habeenimo gelinka dambe diyaar ahaayeen waxaa la waayay ciidamadii banaanka ka imanaya ayaa la waayay communication xiriiriyana ma jiro kumaan boosna ma jiro iyo communication lagu wada xiriiriyo ciidamada soo galay kuwii joogay markaas waxay noqotay marka goortii waagu bariyey 10kii barkii marayso wix ciidan magaalada gudaheeda ka diyaar garoobay inay kala tagaan qoyaan waagu inagu bariyey aan kala tagno wana wala meesha saagalo birito iyo habeen dambe waxay dib laga abaabuli doon hal abaabulo ayay noqotay markaas intaas dhacday markii ciidamadii diyaarka kala tageen ayay ciidankii banaanka ka imanayay ayay soo galeen magaalada markaas qololba meeshii waajibka ku lahayd abaartay intaas banaanka ka timo soo gashay ma wax kale markaa ciidan oo diyaari ma jira iyagana kumaan isku xiray ma jirin sidaas marka waxay keentay in inqilaabku uu ku fashilmo si fudud ayay keentay ayay kaliftay marka waxaa la haddaan dib u baareen maxaa taas kalifayna waxaa la yidhi ninkii inqilaabka hogaaminaya Ciro ee waxaa loo soo sheegay inuu bedelna yahay oo ciidankii cirka uu markaas banduulaha ka ahaa iyo howlgelintii guud u ahaa inuu bedel ka mid dibaddana loo wado warkaas oo soo ogaaday isagoo uu xog ku helay ayaa marka wuxuu sidaado aan inqilaabkii meel dhigin inaan tegin maadaama uu kii ka ahaa ragga inqilaabka la socdo warkooda sir baa baxday marka malaha inuu inqilaab wado miyuu sirta inqilaabku waa iska ma baxan ma baxday in kala ma aqaan laakiin dawladdu way ka xogaalsantaa mar walba ma ogtahay marka in ay meel dibadda ma ambassador baa laga dhigay mase meel baa diyaaradda kulli waa laga saaray xaaladda ciidanka in laga saaray ayuu ogaaday saasaa keentay inay marka anigu taas waxaan aanin marna ma dhici karto inaga joojiyo wax dama wadanka gudihiisa ka dhaca ilaa aynu awoodeysano oo aan dhisano oo aan himilayno inaan wax qabsan karin iyo inaynaan wax qabsan karin inoo kala cadaato suurtagal noqon mayso inaynu hawl aanu faldama aynu ka samayno wadanka inqilaabku waa dhacay wixii la qaban karay la qabay wixii la xiri karay la xiray markaas lama dilin weli raggi markaa lama dilin weli laakiin waxaan sugaynaa taas horta intaasaan ku joojino iska joojino intaasaan ku xirnay weliba ninka anaa si fiican baan aan uga hortegay arrintaas aanay dhicin ragna waan helay waayo waxay ka soo wadankeena gudaheennii waxa aan mudan doonana markaa ma naqaan meesha la tegay waxaa ku xigay marka kabacdi intaan nimanka la layn waxaa ku xigay abaabulkii ka socday East Africa khaasatan Nairobi ciidamaa la abaabulay oo Ethiopia ay ogolaatay in wadankooda liyaada baysan laga samayso laga dago baysaskan way bixisay ciidamadii baa la abaabulay East Africa wixii markaa la heli karay falaydkii ugu horeeyay ciidan oo 200 baa laga diyaariyay Nairobi 209 September 78 ayaa boqolkii ugu horeeyay la qaaday oo la geeyay dirdhaba la geeyay erar gooto oo laga meeshii lagu dhisay ciidamada jabhadda ayaa la geeyay falaydkii labaadna 12 September ayaa la qaaday oo la geeyay isla dirdhabe erar gooto oo ka xigta dhanka Addis Ababa ka xigta 50 kilometer galbeedka dirdhabe intaas hada marka waxa la ogaaday marka in uu la faysgareeyay baqdintii ay jaban tahay oo ciidamadii mar haddii inay wadanka galeen la ogaaday haddana meel tababar la geeyay xaaladdu ay wanaagsan tahay isla markaas
na waxaa ururay wixii kale oo meelaha hawdka joogay oo carada joogay iyagana way is urursadeen oo wixii banaan ay joogay iyo wixii hersheer ahaa iyo wixii dagaal baa lagu jiro dad badan baa dadku iska baxsanaa